بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. waxaan soo jeedinaynaa cashar ku saabsan maadada tarbiyada gaar ahaan fasalka afraad ee dugsiga sare. casharkaasi waxa weeye ghazwatul ahzab, duulimaadkii ama dagaalkii la oran jiray al-ahzab. duulimaadkan laba magac buu leeyahay. magaca al-ahzab oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala suurad quraanka kamid ah ugu magac daray dagaalkan uu ku faahfaahiyay ama wax kamid ah uu ku sheegay xaaladdu say ahayd gaar ahaan iyo sidii muslimiintu libta iyo guusha ay ku heleen. magac kalena uu leeyahay oo al-khandaq ama ghazwatul khandaq ama yawmul khandaq magacaana uu leeyahay si axaadiista badankoodu ay tilmaamayaan oo saxaabadu markasta waxay oranayaan yawmul khandaq maalintii godka la qoday saas oo kale. marka labada magac buu leeyahay. dagaalkan sanadii shanaad ee taariikhda hijriga ayuu dhacay. quraysh oo beela kale wadata Ghatafaan oo kale ayaa waxay soo weerareen magaalada Madiina iyagoo doonaya muslimiinta inay jirid gooyaan. aynu bilowno taariifuha aynu ku bilaabana qeexitaanka la qeexayo. ghazwatul ahzab duulimaadka al-ahzab ee ay isku bahaysteen nimanka mushrikiinta ahi oo ghazwatul khandaq ama duulimaadkii al-khandaq la oran jiray ee muslimiintu ay godka qodeen ay ku wareejinayaan magaalada Madiina halka laga soo galo. هي يد معركة ودجال وقعت دعدي في سنة الخامسة من الهجرة شنات تاريخ الهجرة. وحنو الحيث بين مسلمين وقريش مع غطفان. هي قريش أو تا قلد اللي يهدو غطفان يلها غطفان. الأسباب سوت الدجال كان يتوحى هاي النبي عليه الصلاة والسلام أيوه كقحيي مقالة المدينة يهودي لورنشري بنو نضير سيلهي وكشاجي سورة الحشر وكفاه فهي marka markuu nimanka qaxiyay ee ay magaaladii ka guureen sababtuna waxay ahayd nabiga kaleey salaatu wasalaam oo ay ku ballan fureen oo ay dooneen nabiga kaleey salaatu wasalaam inay dilaan oo ay iqtiyaalaan oo nabigu intuu magu doonay sidii lagu heshiiyayba ayaa waxay yiraahdeen halkan nagu sug dadna waxay dooneen oo ay damceen inay nabiga kaleey salaatu wasalaam dhagax ku soo wilaanwiliyaan ama ay ku soo tuuraan kadibna uu nabiga kaleey salaatu wasalaam halka ee uu ku dhinto. marka waa loo sheegay wixii baa loogu sheegay isaga iyo dhowrkii saxaabiye la socday meeshii way iskaga tageen kadibna nimankaas way go'doomiyeen oo way soo weerareen. marka nimankii adigu waa la qaxiyay magaalada Madiinana sharkoodii iyo dhibkoodii waa la dhaafiyay. marka ninkii madaxda u ahaa la oran jiray Huyay ibn Akhtab ayaa wuxuu u tagay Quraysh isaga oo doonaya in weerar la soo qaado oo Quraysh iyo qabaa'il fara badan ay soo bahaysteen iyo isagoo dhiiri gelinaya iyo in marka ay weerar soo qaadaan oo muslimiinta ay ku jirid gooyaan magaalada Madiina isaguna uu heshiis iyo ballanka hayo qolada Yahuudda ah ee leeyahay Banu Qurayda uuna sheegay in ay nabiga heshiiskii kula jiraan ay ka bixi doonaan oo garabkooda ay noqon doonaan. بعد أن أجل أمره قحيي الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك بني نضير قلد لها بني نضير وصاروا أي سعودين إلى خيبر أي سعودين أما أي آدين دولك خيبر. أخرج وبحي رئيسهم لكي مدحضوها إلونتي حيي بن أخطب وصفية بنت حيي أم المؤمنين هيد أبيهد إلى قريش أيوب بحي أحق ودوادي وعاهدهم حكو له الشيء على حرب النبي صلى الله عليه وسلم نبي إن لا تقعلم. وذكر وحو الشيء أنه يسوي يحمله إنه حنباريو بني قريظة قال لها بني قريظة بنقض العهد هشيسك إن أي بريان هشيسك نبي أي كل تشران إن أي بريان إنه حنباريو أيو الشيء قريش. فسار معه وحال تركي السعودية أبو سفيان ابن حرب وغيره يكوي لمدك هاي من رؤساء قريش مدحدي قريش كمدها في قبائل العرب waxay dhex tageen qolooyinkii carabta ahaa ee magaalada Makka u dhowaa si ay ciidamo uga soo urursadaan ayay ku tageen. marka nimankani waxay badanaa dadka ay ku soo kaxaysanayaan waxaanu difaacaynaa Kacbadii baanu difaacaynaa diintii abayaashinba wax laga sheegayaa waka diin cusub timi waxa la doonayaa dhulka in la inaga la wareego waxyaabahaas ayay beelaha ku akhrinayaan si ay u kiciyaan oo ay ula dagaalgalaan. حتى جتمع إلا يسوء رصدين على قتال النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال دجالا كيسا 10,000 مقاتل طبعا كن ودجاليهن ومن قريش وغطفان وغيرهم كم إذا قريش يا غطفان يو بيلها كلا يلا متكع
yaquuduhum waxaa hogaaminaya 10,000 abu sufyaan baa hogaaminaya fi sanati alkhamisati lilhijra min shahri shawaal waxay ahayd sanadii shanaad ee taariikhda hijriga bishii shawaal وبشان هذا إنكو تشرنا واي حفر الخندق مركا وقت بقادنا ساين بيلها الله صور ريو والله جو قنعيو وقت بقادنا ساين مجال مكاك صباحان أو مدينة أي مادان مركا النبي جوركي أيها علي عليه الصلاة والسلام عيدا فربضان وحوق لهين وإيمانيو وسوير تجيو رسولك عليه الصلاة والسلام حلة شضي صحابة دي سي مهاجرين يا أنصار مركا ينوجد بن 10 حفر الخندق لما علم مركو قال الرسول صلى الله عليه وسلم رسولكم الخبر وركي استشار وحلة شدي أصحابه أصحاب تيسا وقادته ويه قامياشيسا في الحرب دقال سراكيشي سيبولة شدي ليرهنا إجيسياشها أصحابها فأشار عليه وحوت المامي سلمان الفارسي سلمان كي غير فارسها بحفر الخندق إن لقد قد في مشارف المدينة magaalada madiina duleedkeeda ama kambalkeeda laga qodo oo halkay soo marayaan jidgooyo la sameeyo saa loo qodo fastaxsana ar-rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu wanaajistay rasuulku ra'yahu taladiisa وعمل به وكعمل فلايمه وكو دقمي واستطاع المسلمون مسلمينتي waxay awoodeen inhaa حفر الخندق in la dhameystiro qoditaanka la qodiyo godka bacda muddo kadib ama xilli daamad gaadhay 15 يوما شن iyo 10 maalmood marka riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan bil ku dhawaad inay qodayeen marka bishu waa inta nimankan ay diyaar garoobayaan ciidanka urursanayaan ay soo socdaan ilaa Makka iyo Madiina waxay isu jiraan 300 iyo intaas oo kiiloomitir ka ciidan dhan oo guuraya de waxaad dareemaysaan in ayar uu soconayo oo aanu markiiba de baabuur ku imanayna ama aan wax kale ku imanayn المعركة dagaalkii بدأت waxay bilowday طلائع جيوش المشركين ciidanka mushrikiinta ama gaalada sahankoodii ama intii ugu soo horeysay muqbilatan mid ku soo jeeda على المدينة magaalada Madiina min jihati jabal Uhud waxaan ka imanayay dhanka buurta Uhud ولكنهم ay yeesheen fuujiu waxa kida laga dhigay biwujuudi al-khandaq jiritaanka uu jiro godkaasi فقاموا waxay istaageen ama ay ku nagaadeen izaa al-Madiinati magaalada Madiina horteeda shahran bildan bil bay hor joogeen magaalada waaya marka godka ilaa waxa la qoday 2 kiiloomitir iyo dheeraad 2 kiiloomitir iyo 700 mitir wax ku dhow ayaa godka dhererkiisu u ahaa hoosna waxa loo qoday ilaa 3 mitir ballacana waxa loo qoday ilaa 4 mitir qiyaasaha runtii aan akhriyay marka diraac bay cabirayaan labada diraac ama labada dhudhun ayaa waxay noqonayaan 1 mitir bay noqonayaan marka adigu qiyaastii intaas ayuu ahaa marka faras kama boodi karo oo wuxuu ku dhacayaa gudaha godka haddii gudaha godka ku dhacana kama soo bixi karo fama istaacu an yadharuuhu wama istaacu lahu naqba sidii yaajuuj iyo maajuuj oo kale marka mushrikiintu marba waxay eeganayeen meel uu godku isaga dhow yahay oo ay ka soo gudbaan taana suuragal ma ahayn marka saxaabada ayaa heegan ku jira oo doonayeen inay difaacaan oo aan cidi soo talaabin oo aan soo jabsanin halka cidna aan u soo dhawaan naqd al-ahdi burintii heshiiskii la buriyay marka tirada muslimiintu ilaa 3,000 weey badanaana dagaaladii muslimiinta ee gaaladu ay galayeen markastaba waxa badnaa ama badanka waxa fara badnaa ciidamada ee gaalada oo 2 laab ama 3 laab ay markastaba muslimiinta ku noqonayeen naqd al-ahdi heshiiskii la buriyay ee laga baxay lam tajid quraysh ma helin sabiilan wadal ad-dukhuli ay ku gashay ila al-madiinati magaalada Madiina hatta jaa ila uyimi Huyay ibn Akhtab ninka la yiraahdo alladhi kaasoo tasallala udusay ila bani Qurayda reer bani Qurayda وأقنعهم وحكو قنعيي بفسخ الاتفاقية هشيسكا إني كبحان مع المسلمين هيكون تشيران يا النبي عليه الصلاة والسلام مركا سوا ديريميس يهودوني كربي سينيان أو استاجيريان هشيسكا كبحاي يكون هذين
markaa uu ku qanciyey. haddaba waa marka xaaladdu ay adkaatay ilaahayna subxana wa tacaala qur-aanka uu aad ugu nuxnuxsaday. waa markii munaafiqiintu ay gilgisheen ee ay gariireen ee ay joogi kari waayeen goobta iyo meesha laysku haleelay. waid qaalat taa'ifatu minhum yaa ahla yathriba laa muqaama lakum farjicuu. waxaad xustaa markay tiri koox reer yatrib ka mid ah reer madiine ka mid yihi waa munaafiqiintii ilahay wuxuu qarinayaa laa muqaama lakum farjicuu, meelaad ku nagaataan ma joogtaane iska noqda. wayasta'dinu fariiqun minhum annabiya yaquuluuna ina buyuutana cawra. kooxna nabiga ayay ogolaansho weydiisanayeen ku fasaxo, waxay lahayn guryaha iyagu way dayacan yihiin. wamaa hiya bicawratin in yuriiduuna ilaa firaara. waxba ma dayacna buu ilaahay yidhi, waxay doonayaan inay cararaan oo dagaalka ayaanay cagaha dhulka ku hayn karin. marka muslimiintii xaggan dagaalkii kula jira quraysh iyo qatafaan ayaa xagga kale waxa ballantii iyo heshiiskii ka baxay nimankii kale yahuudda ahaa ee banu qurayda. marka taasaa keentay culays, muslimiintuna aad bay u warwareen. waxay yidhaahdeen magaaladii madiine ayay kuwaasidiin daba marayaan. waid yaquulu almunaafiquuna waladiina fii quluubihim maradun maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruura. markay munaafiqiinta iyo kuwa qalbiyadooda bukaa ay lahaayeen ilaahay iyo rasuulkiisu waxba noomay ballan qaadine, guulla noomay ballan qaadine, kedo ayna kedinayaan iyo dhibaato ay madaxa noo gelinayaan ayuunbay noo ballan qaadeen. ilahay wuxuu uhi waid zaaqat alabsaar wabalagat alquluubu alxanaajir watadunnuuna billahi dunuuna. waxaad xustaa waad nicmada ilaahay xustaa marka indhuhu ay leexdeen ee dhanka madiine iyo magaaladii marba ay u leexanayeen, qalbiyadii ay gaadheen halkan xanjarada hunguriga ay soo gaadheen intay kor u soo kaceen. qofku markuu boqo halkaa waxaad muddaa inuu dhagax u fadhiyo ama uu cadhoodo ama uu murugoodo. tadunnuuna billaahi dunuuna, ilaahayna waxaad ka melinayseen malayaal kala duwan, in laydinka adkaaday, in magaaladii la qabsaday, in aad guul heli doontaan, waxyaabo badan oo kala duwan baa la malaynayay. marka xaaladaha ilaahay uu tilmaamayo ayaa lagu sugnaa. walamaa calima nabiyu sala allahu caleyh wasalam, nabigu markuu ogaaday bilamri arrinka oo ah inay nimankii heshiiskii iyo ballantii ay ka baxeen, arsala bacda asxaabihi, saxaabadiisa qaar ka mid ayuu u diray nimankii banu qurayda liyata'akada si u hubiyo bisixati alkhabar, warkaas saxnimadiisa. fawajadahu wuxuu la kulmay rasuulku saxiixan, warkaas inuu saxiixay. wahaakada saas uxiita waxa lagu hareereeyey bilmuslimiina, muslimiintii ayaa lagu hareereeyey. annasru waa guushii. waxaa jira nin la yahay nucaym ibn mascuud. marka ninkani dagaalka dhexdiisii buu islaamay, waxaanu ka mid ahaa qolada la yidhahdo qatafaan. markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu u yimi, wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow waan islaamay, waxaad doontana waad fari kartaa. markaa rasuulku wuxuu ku yidhi nimankaa hooji, waayo dagaalku waa tab iyo farsamo. markaa deetana wuxuu ku yidhi un akhriyi doonaa. jaa waxaa yimi nucaym ibn mascuud markaa la yihahdo ilaa rasuuli illaahi sala allahu caleyhi wasalam, rasuulka ilaahay buu yimi musliman, isagoo markaa islaamay hoggaansamay, ilaahay hoggaansamay. faqaala wuxuu yihi qad aslamtu, rasuulka ilaahay waan islaamay. famur bii waxaad fartaa bimaa shi'ta wixii aad doonto. faqaala wuxuu yihi rasuulku inamaa anta rajulun waaxid, inamaa anta adigu rajulun nin unbaa tahay, waaxidun keliya. fakhdul canhum, nimanka hooji ma statacta intaad awoodo. fa ina alxarba dagaalku khudcatun waa farsamo iyo tab. fadahaba markaa wuxuu tegey ninkii ilaa bani qurayda, qolada layahaa bani qurayda, wahum laa yaclamuuna iyagoon ogeyn biislaamihi islaamnimadiisa. wa kaana wuxuu ahaa saaxiban lahum mid heshiis laa fi ljaahiliyati waqtigii islaamka horreeyey. fadakhala calayhim wuu galay. wa qaala wuxuu uhi qad caraftum waad garanaysaan wuddii kalgacalkayga iyaakum idinkaan idin jecelahay. qaaluu nacam haa bay idhahdeen. qaala wuxuu yidhi fa ina qurayshan, nimanka quraysh yahdo, laysuu maaha midlakum sidiinoo kale. albaladu baladukum, dhulkani waa dhulkiinnii. fiihi amwaalukum wa abnaa'ukum wa nisaa'ukum, xoolihiinnii, ubadkiinnii iyo dumarkiinniiba way joogaan. laa taqdiruuna an tataxawaluu min, ma awoodaysaan inaad ka guurtaan oo meel kale aad u guurtaan, ilaa hayrihi, dhul kale inaad u guurtaan. wa ina qurayshan waqatafaana, nimanka quraysh iyo qatafaanna jaa-uu ila alxarbi, dagaalun bay u yimaadeen. fa in asaabuu fursatan, hadday helaan jaanis, intahazuha way ka faa'iidaysanayaan. wailaa haddii kale laxiquu waxay haleelayaan ay gaadhayaan bibilaadihim, dhulkoodii. wa tarakuukum wa muxamadan, idinka iyo maxamedna way idin kala tegayaan. markaa fantaqama minkum, maxamed waa idinka arsanaya. qaaluu waxay dhahdeen fama alcamalu, shaqadu maxay noqonaysaa, waxaanu samaynaynaa yaa nucaymow. qaala wuxu uhi laa tuqaatiluu maca quraysh, quraysha la dagaalamina, wax la dagaalgelina, xataa yuctuukum ilaa idin siiyaan rahaa'ina, heshiis adag.
oo ah inaan idinka tegayn ee ay joogayaan ilaa kala calaf qaadayo qaalu waxa ilaaheen qad asharta waxa tilmaantay bira'yi aragti wanaagsan baad sheegtay bilaa thumma mada ila quraysh buu tagay وقال وحول تعرفون ودي لكم ودوكتين كالقعل كان دين جعلها ونصحي يتلضيدا قالوا نعم هابدا قال وحول إن يهود قد ندموا وحي كمرغودين على ما كان منهم وحي كدعي ومن نقض عهد محمد وأصحابه إن يبريان هشيسكي محمد يا أصحابي سيكون لتشرين فإن سألوكم رأينا فلا تعطوه هدين ويديستان هشيس أذك يبلان أذك إنان نكتغينين حسيننا أنا كييننا haddaba sidaa markuu isugu diray ayaa nimankii quraysh waxay dooneen inay maxamed iyo asxaabtiisa habeen sabti weerar ku soo qaadaan ayay dooneen marka sabti baan habeenkaas ahayd ay u sheegayaan weerarka in biri la qaadi doono oo ay la dagaalgelayaan sabtina yahuud ma dagaalamaan soomaad garan waxaanay xasuusnaayeen nimankii بدي حيلي جدا دجنا اللي ريح كلهم يسنينا سبتدا لو دي كلهم لقونا يتحامي دي سبتدا كلهم كبناك وسوي بحيي كدي من حيل هذا يسجدت كسمية كلهم كينا مركا أنتي ما أنت كور يسجد القضاء سبتدا وكل حدنا كجورني واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون يتنقر أيوانيين يهلين وحن لما أقول حيلة شرعي جيو حيجا لقى حيلة ذي سنة قارن أي كأموسين قارن أي فعل كي بسميين ودي حيلة ذي استين مركا إلى هاي كوي تيوانيني إلها كتشوجا إلى هاي وبد بادي كوي كلو ميسانين ولا حلاقة حيلة ذي سنة شرعي حيلة ذي سنة كوي أموسينا إلى هاي قرآن كمشيكين حالة دودي علماء وسوق خلافين marka sabtida weynay ayaa leeyahay marka waxay dhahan ma dagaalmayno halkaas ay seegu ka dhacday فلما كان ليلة السبت marka ay habeenkii sabti ee min shawaal bisha shawaal bacthu waxay u direen ilaa yahuud bay u direen iyaga oranay inna anagu lasna minhum bi ardi muqam dul nagaadi waanu deganahay maaha meeshan waqad halaka waxa halak samaa al-qura' ay al-khayl was-silah fardihi yahubkiba way halak samin wal khufu geelina uu halak samin ولما كنت قرش بدان أي كسر طبعا كن قعيدنا وين وبالميل دكنا كريه دي غيره دي كسر مقنع مركا ودريم كرسة عليس واي والخوف يجي لي بوه لك سمي فانهضوا بنا الراعة حتى نناجز سيان الله دقال محمد مركا يهود السبت ما دقال فقالت اليهود إن اليوم يوم السبت ما أنتوا معنا السبت ويلحدي فلا نقاتل معكم إن لما دقال مين هدانو السبت لا حرمة دي بريننا حتى تبعثوا إلينا رهين وين النسيسان هشيس أدقوا أحيانا الدجال كان يجتهين مركز ساسة يهودي كعذر تارتين لبدي كحدنا ساسي سكوه تشين أركانوا حكدن بي نعيم بن مسعود رضي الله عنه وارضاه واستطاعوا حيودين عدد كوح من المشركين قال هذا كمده عبور الخندق قد كيني كسو قدباني كسو طلابان مركا مربو يسكو ديين هالكو يسكدوا يهينا كسو طلابان واقتتلوا وحلا دقالمين مع المسلمين مسلمينتي فقتل وحلا دلي من قتل عدي للدلي وهرب وحا عرتي من هرب فدي عرت وسيله يقول فغشيهم من اليم ما غشيهم بيها حقودي وحا كدبولي وحي دبولي وعقاب إلهيها marka wasaas oo kala hadana waayahay ka soco وكان waxa kamid aha min jumlat al-haribin kuwa cararay jumladooda iyo wadartooda ikrima ayaa kamid aha بعد مقتل عمرو بن عبد الود مركي دليني كانوا يشري عمرو بن عبد الود العامري على يد علي بن ابي طالب رضي الله عنه او كبخي غعنت علي بن ابي طالب لا يكره النقد ولما طال مركو دheeraadi مقام قريش نغاديغودي ay ku nagaayeen magaalada Madiina duleedkeeda tafakkakat waxa furfurmay rawaabit jeeshihim ciidamadooda xiriirkii ka dhaxeeyay ونعدمت waxa la waayay afiqatu kalsoonidii bayna atraaf alqabaa'il beelaha dhinacyada ah ee dagaalka qayb galayay ee ka dhaxeeyay kalsoonidiina waa la waayay oo dadkani dad deegaano kala duwan ka yimid ahaayeen duruufo kala duwan bay ay ku noolaayeen ama ay joogeen qaar baa waxay doonayeen in ubadkoodii iyo reerahoodii iyo noloshoodii ay caadigeeda ku noqdaan wada gaarkan iyo noloshan adag ay ka baxaan
وأرسل الله إلهي وحصاد ريحا ضويل شديدة درن ضويل شاسو قلعت فجسي خيامهم تاندوين كودي أما تاندوين كودي واي وجرفت الركتين مؤنهم والكودي أي وحكر سنيين وأطفأ الدميسي نيرانهم تبكي الشدنيين هبينك مرسن باور ما تشوكتدي فرجعوا إلى مكة مكة أي كن نقدين ورجعت غطفان وحي كن نقطي إلى بواديها ميديدي يميليها كي مادين وحين أشرق الصبح واجي مركو بريي لم يجد المسلمون مسلمين ميهرين أحدا منهم عد يجا كمدها وانك عد كمدها مسلمين ميهرين وحيبا وكبح خطك لا يحري يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها واحد حسان نعمين إلهي ذي نعمي مركا عيدا ميدين مادين وحان أدر نبي إلهي يري ضبايله يعيدمو آني أركينين ضبايل شعر باتدو قيستي هي ملائكته قلبيدو ذا أرقق حقلنيسي كان الله بما تعملون بصيرا إلهي وحو هذا مركز دبا واحد سمين إنسان من أركيا مركان من كساسي كقورين ولبا رسولك عليه الصلاة والسلام هبينك وحوري من يأتيني بخبر القوم لما كوركو ذي كينية أنا الصحابة دي وإسود قابية مركا وحلا دوني يقف آني فهمين وآني قرانين كمويه لكن دي وركون كهنا الصحابة وين لو ما دري كراو بكر يا عمر يمركي ويقرانيا الصحابة يرو وين لو درا يتشوني يركع مركا والله لقى وضع عي رسولك عليه الصلاة والسلام مركا ما رسولك أين حذيفة ميت وحلوان صوكعي أنا أقول حمونا يقرب قرية رأس رسولك في الأرض وتقو لما كوركو ذيكين وح aad geysanayso dhibaatayna yaani jiray waan socday buuri marka aad baan u xamoonay markii hore laakiin intaan sii socday intaan soo socday toona dhaxan maan dareemin buuri Xudayfa radiyallahu anhu warda tan wuxuu yiri Abu Sufyaan hortiisii baan fadhiistay anoo de leebkayga qaansadaydi iyo hawlahayga ay diyaar yihiin markaasaan yiri ku sii deysa markaasaan hadalkii rasuulkan xasuustay alayhi salaatu wasalaam tan waan dhageystay markaa uu calaacalayay hees calaacal uu baxaysay wuxuu la markaa waynu guureynaa waynu iska noqonaynaa waxayna ku dhacay wada aragtaan dadana waa soo noqday buu rasuulkii warkii ayaan alayhi salaatu wasalaam aanu keenay markaa warkii oo dhameystiran mar rasuulkii alayhi salaatu wasalaam wuxuu kadib markaan rasuulkii saa ugu yimid ee dhaxantii halkii iga bilaabantay tan rasuulku go ayuu ugu dado dadana uu seexiyay subaxii ayaa laga wada hortoos markaas wuxuu yiri rasuulku alayhi salaatu wasalaam qum ya nawman istaag hurda weynow markaasaan kacay buu حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة رسولك إلهي سرتي سكي حي أي قاني رسولك عليه الصلاة والسلام سرتيس وايهي كسعو وبعد غزوة الأحزاب دولمات كي أحزاب كذب تغيرت وحيث بدلي الخطط قرشوين كي العسكرية دقال من مرحلة الدفاع هير دفاع المسلمين تكبحين إلى مرحلة الهجوم هير ويرر عيان النقضين حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النبي يقول عليه الصلاة والسلام الآن هدا نغزوهم إنك أي كدوا لينه هالكود وقلت جينا ولا يغزونا إن قصوا دولي مايا صخرة الخندق كل معجزين بدن بعد عيد قال كاس وحياة بدن والنبي عليه الصلاة والسلام نبي نويد سكوت السنية مركا قار بدن وحنا كفافين شن مركا 10 ستة صور جينه هذا لكن صورة قلنا معها ونسوق بينا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كوحها وأصحابه يا أصحابتي سبا يتفقدون كوكر ميرية سير العملي شقدها بكا يسعد فوجدوا وحي لكل من صخرة رجح كبيرة وين كانت هيدا عائقا عقبت حيث ما لو كسرت أي تشبسي المعاول مدركة الحديدية برتاها فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بأوصهر مري الصخرة رجحي وقال وحد بسم الله مقع إلهي بنك بالله بيا فضربها وقلفتي فتصدعت مركويد الله عدي أما رجح ود الله وواحد تصدعت لولي تأذل الرعينية صخرة أياه للدقة عربيهان إنك سودية صوماليهان لابس كنقونس وبرقت وانا افتينتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا رسولك إلهي وحول الله أكبر إلهي باوين ووحك سبك وين قصور الشام ورب الكعبة رأيت قصور الشام وحنار كيف فوق يدي الشام أمر اسم يشي وويناي الشام ورب الكعبة ربي الكعبة اسكالي بان قرعته وحو مسلمين توقوا بشاريني أيقوا مقالة المدينة كوكو دونسان إن يدولك قبصان دونان ويفران دونان وياهي ثم دتنا ضرب وكلفتي ضربة كلفشة أخرى كله فبرقت وجه العضي صديق كله فقال وحول مركا رسوله الله أكبر إلهي باشيك السبكوين قصور فارس ورب الكعبة رأيت قصور فارس وحاركي وغير فارس
يدسمياشي واوينا وحن كل أرتي ربي كعبد إسكله وضرب ثالثة مرصد هذا يقول فتي فقال وحول الله أكبر إلهي باوين وحكسبك وين أعطيته حل إسيي مفاتيح اليمن فرياشي يمن دولك يمن ودولك المسلمين تايوهر فرتين الشام يفارس يدولك يمن انتهى بوا دولك يوهر ري يمرك النبي عليه الصلاة والسلام وبنتي المسلمين تاي فرتين هنا في ذا إسلام المناقشة والله يلسكي متى وقعت قرمين على غزوة الأحزاب دولمات كيلونتر الأحزاب ما هي ومحي أسباب الغزوة سببها الدولمات كاي دغالها كانتي من أشار كما يكتليي بحفر الخندق إن لقضه قد هل كاو عدو كسوق لينا لقى قضه سياني وقصو طلابين أي من الذي حرض كما يكون رجالي بني قريظة يمكن بني قريظة بنقد العهد يشيسكا إن كبحان ويبوريان وأي سؤال شو قدام بيسا ما هي نتائج الغزوة دغالها نتيجوين كي كذا شيء حكم ذا هذه أدبد ما سنتين سوانا سنة 10 كادو دقيقة سنين انتهى سنة كسوكوينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.